xuska dhalashada nabigeena nabadgeliye iyo naxariis dushiisa ha noqotee ayaa lagu qabtay xeryaha qaxootiga kala ay fawaan dhagaxley iyo xagardheer. ardayda qaar ka mid ah macaahidda diinta iyo culimada maamusha ayaana ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay. ardayda macadka Ihyaa Culuumudiin ee xerada Ifo iyo muslimiin badan ayaa isugu soo baxay xafladda lagu weyneynayo maalinta dhalashada xabiibkeeni taasoo ka dhacday garoonka weyn ee xerada qaxootiga Ifo waxayna soo bandhigeen khudbado kala duwan. عام ولادته عام الفيل لأن ملك الحبش أرسل عام ولادته جيشا لهدم الكعبة وكان فيه فيل عظيم فأهلك الله الجيش إكراما لولادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا ألا نمل بمدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دوما ودواما. Sheekh Cabduladiif Shariif Axmed oo ka mid ah ducaadda xerada Ifo ayaa hadal kooban oo ku aadan munaasabadda ka soo jeediyay goobta. waa maalin dadka muslimiinta farxadooda ay muujiyaan kayfa shaa'u siday doonaan. maanta annaga waxaan isugu soo banaanbaxnay barxadda ciidda salaada lagu tukanayay waxaana u imaanay waxaa weeyaan احتفالك مولودك النبي صلوات الله وسلامه عليه. وان كدرك سنة هاي قيمها يقدرنت النبي إلهي أكتس وكليه. وان كدرك سنة هاي قيمها يقدرنت النبي عليه الصلاة والسلام ملائكة أكتس وكليه. وان كدرك سنة هاي قيمها يقدرنت أصحابته iyo salafu saalixa agtooda uu ka leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam. waxaad ogtihiin marka qadarinta uu nagu leeyahay nabi Muhammad kaleey salaatu wasalaam waa tan maanta halkan na keentay weeyaan. waa tan maanta odayaalkeena iyo hooyooyinkeena iyo dhalinyaradii iyo ciyaalkii yaryaraa dhammaan meeshan isugu keentay weeyaan. taa ayada waxaan u malaynayaa uma baahna in la faahfaahiyo nabiga qadarin miyuu nagu leeyahay mise su'aasheeda ma taalo. kaliya waxaan muujinaynaa qadarinta nabiga uu nagu lahaa iyo farxadda maanta oo kale ay leedahay ayaan muujinaynaa kaliya bas. laakiin mawluudka in la dhigo ama loo dabaaldego daliil ku soo arooray miyaa jira diintu maxay ka qabtaa waxyaalahaas hore loogu soo daalay qodaxdoodina dadku way ka baxday hadeertan. kuwii markii hore qodaxdooda ay ku jirtay way ka baxday laana maxaa yeelay waxaad ogtihiin Sacuudiga waa meesha ihtifaalka mawluudka nabiga markii la yiraahdo aanan laga ogoleen weeyaan waana laga ihtifaalay. waxaad ogtihiin dunida islaamka meel walba ay joogaan in maanta kale loo ihtifaalayo dhalashada xabiibkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi. raadka aan hayno muxuu yahay marka waa raadka ilaahay uu weyneeyay nabigiisa malaa'iktii ay weyneeyeen asxaabtii ay weyneeyeen salafu saalixi ay weyneeyeen raadkii baan haynaa innagana bes. marka qadarinta maanta uu nagu leeyahay baa oraxda na joojisay. inkastoo culimada Soomaaliyeed aysan isku waafaqsanayn xuska dhalashada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam haddana muslimiin badan ayaa isugu soo baxay garoomada waaweyn ee gudaha xeryaha kuwaasoo ka muuqatay farxad wajiyadooda. Maxamed Baarud Xuseen wararka STN Dadaab.